waxa uu ahaa nin sameeya sanduuqda ama waxa loo yaqaano boxka, sidoo kalena xirxira wixii u baahan in la xirxiro ama la farsameeyo. Sidoo kale waxa uu ahaa ninkii aasaasay shirkadda samaysa shayaasha loo yaqaano luxury-ga ama raaxada, taas oo magaceedu ahaa Louis Vuitton 150 sano ka hor, loona soo gaabin jiray LV. Shirkaddan ayaa soo saarta boorsooyinka, dharka, kabaha, sidoo kale waxyaabaha laga sameeyo dahabka. Waana ay adag tahay shirkaddani inuu shakhsi wax ka iibsado maadaama ay samayso ashyaa qaali ah. Louis Vuitton waxa uu dhashay 4 bishii 8aad 1821 waxa uuna ku dhashtay magaalo la yiraahdo Angers, taas oo dhacda bariga France. Xavier Vuitton oo ahaa aabihiis waxa uu ahaa beeraley, sidoo kale hooyadii Crone ayaa dhimatay. Louis Vuitton oo 10 sano jira markii uu gaaray da'da 13 sano ayuu ka tegay magaaladii ay deganaayeen, waxa uuna lug ku tegay Paris. Safarkan ayaa ahaa mid gaaraya 292 mayl, waxa ayna ku qaadatay inuu u socdo muddo 2 sano kadib imaanshihiisii Paris. Sanadkii 1837 waxa uu noqday mid kaga guuleysta samaynta sanduuqda iyo xirxiridooda raggii kale ee ka shaqayn jiray Paris. Sanadkii 1853 ayaa loo aqoonsaday ninka ugu wanaagsan ee xagga samaynta sanduuqda ama boxka. Sanadkii 1854 ayuu guursaday 17 jir lagu magacaabi jiray Clemence. Kadib guuleysigiisii biladii Empress of France ayaa isaga tegay shaqadii uu markaa ka hayay, waxa uuna furtay dukaan asiga u gooni ah. Sidoo kale 1867 ayuu guuleystay abaalmarinta Bronze Evolution University intii lagu guda jiray colaadii ama dagaalkii Franco-Prussian War. Dhammaan qalabkii uu ku ganacsanayay Louis Vuitton waa ay burbureen, waxaana sabab u ahay dagaalkii ama colaadii weyneed ee Franco-Prussian. Burburkii kadib ayuu waxa uu soo saaray sanduuq cusub oo lagu xardhay diilmo guduud ah, kuwaas oo isla markiiba soo jiitay indhaha caalamka. Kadib soo saaritaankiisii sanduuqda ayuu mar kale ku guuleystay abaalmarinta Gold Medal and Grand Prize Exhibition Universe sanadkii 1889. Intaa wixii ka dambeeyay waxa uu sii watay shaqadiisii, waxa uuna dhintay markii ay da'diisu gaartay 72 sano, kuna beegneed 17 bisha 2 1892. waxa uuna hantidiisa ku wareejiyay wiilkiisa Georges Vuitton. Sanado kadib waxaa soo baxay shirkado badan oo koobi ku sameeyay nashqadii lagu yaqaanay shirkaddan Louis Vuitton. Georges Vuitton oo ahaa wiilka u dhalay Louis Vuitton ayaa go'aansaday inuu sameeyo sumad gooni ah oo lagu aqoonsado waxa uu soo saaro. Sumadaas oo ahayd LV. Dhismihii Louis Vuitton oo ahaa markaa kaydka ugu ballaaran dunida ee wax laga dhoofiyo ayaa la furay 1914. Sanadkii 2012 ayaa loo magacaabay shirkadda ugu badan ee iibisa waxyaabaha luxury-ga ee dunida, marka uu hantida guud ee shirkaddan lagu tilmaamay inay ka badan tahay 25.9 bilyan. waxaana booska labaad soo galay Herman oo qiimaheeda lagu qiyaasay 29.1 bilyan. Sidoo kale waxaa kaalin saddexaad soo galay Rolex oo hantideeda lagu qiyaasay 7.97 bilyan. Halkaa waxaa noogu eg sheekadii ama taariikhdii guud ee Louis Vuitton oo ahaa aasaasihii shirkadda LV.